Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Dhammaan walaalaha Soomaaliyeed waan idin salaamay. Waxaan ku guda jirnaa akhrintii buuggii loogu magac daray 4000 Essential English Words. Waxaan ka bilaabi doonaa maanta Allah subxaanahu wa tacaala hadduu idmaa cutubka 22 beejka 134. Alaaba cutub walba waxaan lagu siiyaa erey 20 ka kooban 20 erey ka kooban ayaan cutubkiiba ku qaadanaa. Dadka aan haysan buugga waa nala soo xiriiri karaan ama internetka waa ay ka heli karaan isigoo PDF ah. Haddii nala soo xiriiraan si bilaash ayaan ku siinaynaa. Wada shaqeyn waan ognahay in markaasi qaabka akhriska uu yahay markaasi qaab oo sawir ahaan camal uu yahay. Allah subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryeynaa markaasi inuu na gaarsiiyo hadafkeena oo ah markaasi inaan maqal iyo muuqaal aan ka dhigo Ilaahay hadduu idmaa. Markaasi waa la qayli doonaa insha Allah. Ereyga ugu horeeya maanta 20ka erey nala siiyay cutubka 22 beejka 134 waxa uu yahay actual xaqiiq ah. Qeexitaanku waxaa leeyahay actual xaqiiq means waxaa lala jeedaa shay hadduu xaqiiqi waxaa la jeedaa imkaas something shaygaasi is real uu yahay mid jira or ama true sax ah. Tusaalaha waxaa leeyahay this is actual is what kani waa safety xaqiiqda ahayd that taasoo the kingi boqorka owned uu lahaa not fake one ma aha been abuur mid been abuur ah ma aha saftani. Ereyga xiga waa amaze layaabis qeexitaanku waxaa lagu jirto amaze someone qof inuu yaaba is to surprise them waa inuu shay uu ka yaaba ayaa lagu yiri very much zaaidna uu ka yaaba ayaa amaze loo isticmaalay. Tusaalaha waxaa leeyahay the news akhbaarta in the paper warqada ugu qornays amazed waxaa la yaabay Jack Nicklera ayaa la yaabay. George qiimo is a price waa qiimaha to pay aad ka bixisaa for something shay. Tusaalaha waxaa leeyahay the charge for the sheet qiimaha shaatiga wuxuu ahaa markaasi $15 $15 ayuu ahaa. Ereyga xiga waxaa markaasi comfort waa raaxo. To comfort someone qof inuu raaxaysto means waxaa loola jeedaa to make them inuu ka dhigaa feel better inuu dareema markaasi ficnaansho inuu dareema. Tusaale waxaa leeyahay I wanted waxaa rabay to comfort inaan la raaxaysto my friend saaxiibkay after I heard markaan maqlo the bad news warkaasi xun markaan maqlay. Contact waa la xiriiris. Ereyga xiga waa contact la xiriiris waay. To contact someone qof inaad la xiriirtaa to speak waa inaad la haystaa or write mise aad qoraal u qortaa to them qofkaasi. Tusaalaha waxaa leeyahay I contacted waxaan la xiriiray Sue ayaa la xiriiray about waxaan kala xiriiray maabaati xafladeeda ayaan kala xiriiray. Ereyga xiga waa customer waa macmiil. Customer macmiilka is a person waa qof who kaasoo buys iibsada something shay at the store baqaarka iibsada. Tusaalaha waxaa leeyahay the customer macmiilkii bought a few items wuxuu gishtay markaasi xoogaa sheeya in a bag boorsada ayuu gishtay. Deliver waa tagis ama geyn shay in meel laga qaado meel kale la geeyo ayaa deliver loo isticmaalaa. To deliver something shay inaad geysaa is to take it from one place waa inaad shayga aad ka qardaa hal meel to another meel kale aad geysaa ayaa waxaa la yiraahdaa deliver. The man delivered ninkii wuxuu u geeyay Chinese food cunadii wuxuu geeyay markaasi Chinese ah ayuu geeyay to my house gurigeena ayuu geeyay. In waa helis yani waxaa loo isticmaalaa lacagta ku soo gashay ee wax aad faa'iido aad uga heshaa in la yiraahdaa. To in means in waxaa la yiri waxaa la jeedaa to get money inaad heshaa lacag for the work shaqo you do aad samaysaa. He earns wuxuu helaa his living as a chief wuxuu markaasi ka helaa noloshiisa madaxda sare ah in a Greece restaurant maqaaxi oo markaasi weyn ayuu wuxuu ka yahay madax sare sidaas ayuuna lacag ku helaa. Gate waa ganjeel
qeexitaanka waxaa leeyahay gate ganjeelka is a type of door waa nooc ka mid ah markaasi albaabka. gates waxaa leeyahay markaasi ganjeelkuna usually badanaa ama made of waxaa laga sameeyaa metal bir ayaa laga sameeyaa or ama wood alwaax ayaa laga sameeyaa. tusaalaha waxaa leeyahay we want waxaan rabnaa to put up inaan markaasi istaajino a wooden gate markaasi ganjeel markaas alwaax around our house gurigeena hareerihiisa. include kamid ah waa include kamid ah macnaha ku dhex jira oo kale to include waxa la yiri means waxa la jeedaa include waxa la yiri something to include something shay inuu ku dhex jiro means waxa la jeedaa to have it as a part of group inuu qayb ka yahay waa kooxdaasi. tusaale waxa leeyahay does this meal miyo markaasi raashinkan include oo ku jira soft drink cabitaanada fudud miyay qayb ka tahay. waxaan u gudbaynaa page-ka 135aad 20 erey akhriskiisa ayaa weli ku guda jirnaa. ereygan waxaa leeyahay markaasi waa manage waa maamulis. to manage something shay inaad maamusha means waxaa la jeedaa to control inaad markaasi maareysaa or be in charge of it inaad xukunta ama ajaajaysa ayaa waxaa la yiraahdaa manage. ereyga xiga waa mystery waxaa loo isticmaalaa sirta daasoon ee adagtahay si fudud in loo fahmaa ayaa waxaa loo isticmaalaa mystery waxaa leeyahay markaasi qeexitaankeeda is something waa shay that shaygaasoo is difficult ee adagtahay to understand in la fahmo or ama explain masharaxaad laga bixiyaa. qeexitaanku markaasi tusaalaha waxaa leeyahay the path wadiiqada on the map oo qariirada ay leedahay qariirada wadiiqooyinka uu maraa was complete mystery waxay igu tahay ba aniga wax markaasi ay adagtahay inaan fahma tumi aniga misna aan sharaxaad ka bixin karaa. accurate waa dhicis ereyga ku xiga waa accurate dhicis. qeexitaanku waxaa la yiri accurate means accurate waxaa la jeedaa to happen inuu dhaca. tusaalaha waxaa leeyahay when did goorma the thunderstorm duufaantii accurate ay dhacday opposite lid ku ah waa opposite lid ku ah. qeexitaanku waxaa leeyahay if a haddii a is opposite ay ku tahay markaasi lid of b ay lid ku tahay a waxaa leeyahay is completely a waxay markaasi si dhammaystiran different ugu gedisantahay from b ayay ugu gedisantahay. tusaalaha waxaa leeyahay markaasi the opposite of black cagsiga ama lidka of black madow is white waa cadaan la yiri. ereyga xiga waa blade saxanka is a flat round thing waa shay wareegsan dadkaasoo you put food on in cunno dul saarato waxyaabaha cunnaha aan dul saarano ayaa saxan la yiraahdaa. I put waxaan dhigay leeyahay my blade down saxankayga dhulka ayaan dhigay soo sidaas darteed so I could put saan u dhiga markaasi some food cunno on it saan cunno ugu shubta ana markaasi ama cunno aan dul saartaa ayaan dhulka u dhigay. receive waa ereyga xiga waa receive waa helis. to receive something shay inaad heshaa is to get it waa inay shaygaas heshaa. tusaalaha waxaa leeyahay received waxaan helay a present abaalmarin markaasi ama hadiyad on my birthday xafladeydii. ereyga xiga waa reward waa abaalmarin waxaa leeyahay markaas qeexitaanka reward abaalmarintu is something waa shay given la siiyo an exchange for good behavior isbedelka dhaqan ee wanaagsan or work mise shaqada wanaagsan qof loo siiyo ayaa waxaa la yiraahdaa reward. tusaalaha waxaa leeyahay markaas he was given a reward waxaa la siiyey abaalmarin for his excellent performance bandhigiisa markaasi heerka sare ah ama fiican ayaa waxaa loo siiyey abaalmarin. ereygan waxaa waaye markaasi set waa dhigis to set something shay inaad dhigtaa is to put it somewhere shay inaad meel dhigtaa waa inaad shaygii meel aad ku hubsataa waaye. tusaalaha waxaa leeyahay markaas please fadlan set dhig the dice laaduuga dice waa laaduu down dhulka dhig on the table miiska dhigaa layiri please set the dice down on the table yacni dhulka dhig laaduuda saasaa lala jeeda. yacni hadda waxay ugu jirtaa jumladani laaduuda markii la ciyaarayo kale waxay u baahan tahay in la garaaco
kadibna dhulka lagu tuuro soomaa sagxadda korkeeda lagu tuuro siday ula jeedaan hadda ayaga markaas sagxadda ku tuur waa laadhooda yani si loo arko natiijada kasoo baxda ereyga xiga waxaa markaasi steal waa xadis steal waa xadis qixitaanka waxaa lagu yahay steal inaa xadaa is to take something waa inay shay qaataa that shaygaasoo is not yours aanan ahayn kuwaaga damiin nimankii taraayid waxay isku dayeen to steal inay xadaan money lacag from the bank ee bankiga ka xaram jief waa wees ama markaasi thief aan dhahna thief waa ereygan thief waa tuug thief waa tuug qixitaanka waxaa leeyahay thief tuuga is someone waa qof kaasoo quickly takes si dhaqsaha u qaata things waxyaada do not belongs to them uusan lahayn tusaalaha waxaa leeyahay markaas thief tuuga broke into our house gurigeena ayaa soo jabsaday and tuug wuxuuna qaatay my mother's jewelry qalabka isku qurxinta ee qaaliga ah hooyaday ayuu qaatay halkaas waxaan ugu gudbaynaa 20 erey ee cutubka 22 lagu siiyay page-ka waxaan u gudbaynaa 136 ayaan u gudbaynaa page-ka 136 waa su'aalo si lamid ah 137 waa su'aalo ardayga ayaa la rabaa inuu soo xaliyaa waxaan u sii gudbaynaa page-ka 138 page-ka 138 waxaa markaasi noogu qoran sheeko ama cutub ayaa noogu qoran sheekadan waxaa lagu soo dhaxlifaaqay 20 erey hadana la soo markaasi lagu soo dhaxlifaaqay si markaasi fahamkeeni loo sii siyaadiyo kor loogu sii qaado waxaa loogu magac daray sheekadan better word ayaa loogu magac daray awaalmarintii fiicneed ayaa loogu magac daray waxaa leeyahay markaasi waxay ku bilaabatay sheekadan Jenny gabadha la yiraahdo delivered food waxay cunno geeysaa for a restaurant maqaaxi ay cunnadeeda meelaha dadka ay u geeysaa she read waxay ka akhrisay the newspaper journalka and said waxay tiri Allah amal waay waxna elay la yablewa there was a story about a thief Allah waxa ku qoran yani journalka tuug sheeko ku saabsan he stole wuxuu xaday food cunno ayuu xaday no one had seen him cidna maysan arkin even xitaa the police could not catch him maysan soo qaban Jenny ayaa la yiri was a little scared way yara cabsootay gabadhan Jenny la yiraahdo way yara cabsato she walked close to that area waxay ka shaqeyn jirtay markaasi meeshaas ay ka dhacday tuugnimada ay ka dhacday meel u dhow ay ka shaqeyn jirtay the news paper journalka akhbaartiisana included waxaa ka mid ah a message from the police ee soo qoreen booliska oo markaasi if anything strange occurs haddii wax markaasi cajiib ah oo u dhaca call us na soo wac if you help us haddaad naga caawisaa catch inaan qabno the thief tuuga you will earn a reward abaalmarin ayaad helaysaa intaas waxaa dhahay booliska ayaa dhahay markaasi Jenny gabadha liiraa talked to him way la hadashay he managed wuxuu maamula ka ahaa the restaurant maqaaxida do you know about the thief tuuga ma taqaana yes he said ayuu kiri but laakiin he still wuxuu hara more than wax ka badan one person can eat qof intuu cunila in ka badan ayuu xada ayuu yiri tuuga saas ay tahay waa an kasaa and why haven't the police stopped him yet maxay booliska ugu hor istaagi laayihiin wili it's mystery waa wax markaasi aan la fahmi karno sir daahson waa if you see him isiga haddaad aragto contact the police la xiriir don't run after him haddaba ordin haracdaysan ee booliska tartiib wac Jenny Gabriela drove to a customer's house waxay aaday markaasi guri macmiil ayay aaday drove oo kaxeys waa yani baabuur ay qaatay waa she left her car waxay ka tagtay gurigii she left her car gaarigeeda way ka tagtay and opened waxayna furtay the gate ganjeelkii to the house ee gurigooda but laakiin dan intaas kadib she heard a noise qaylo ay maqashay by her car gaarigeedii ay ka tagtay ay qaylo ka maqatay she yelled waxay ku qaylisay thief tuug ay ku qaylisay she was not scared maysan cabsanin she wanted waxay rabtay the reward abaalmarinta booliska sheega ay rabto tuuga ayay ku qaylisay she did
the opposite of what Jim told her to do. Waxay samaysay wax ka soo horjeedo cagsi ku ah ayay samaysay oo markaasi wuxuu Jimmy rabay inay samayso. yacni Jimmy wuxuu yiri haddaad tuug aragtaa qof baa u sheeganaysa aamus, laakiin iyadu saas may sheegin, tuug ay ku qaylisay. Hey, she yelled, war hey ayay tiri, get back here, halkan u soo noqo. She set the food on the ground, waxay u dhigtay cunno ayay u dhigtay dhulka, and ran to her car, gaarigeedii ayayna ku oroday. But laakiin the thief tuugi had already lifted, hore ayuu wuxuu ugu soo tagay markaas with the food, cunno hore buu ugu soo tagay hadda cunno baana. Jeannie gabadha la yiraahdo yelled, waxay ku qeylqeylisay haddana inuu isqeyli around the corner, geeska ayay u qeylisay. Way qeyliso dhinac ayay u qeylisay. She was amazed, way yaabaneed. She saw waxay aragtay a dog and some babies, ilmihii eyga ayay aragtay. They were eating her food, cunadeedii bay cunayaanbo. They looked thin and scared. They looked way fierce. They iyagu looked way soo fiiriyeen. They looked thin, si markaasi qafiif ah ama ahaato si tartiib ayay u soo fiiriyeen, yani saas lala jeeda. And scared, wayna cabsadeen eeyihii. The actual thief, tuuga xaqiiqda, is just a dog, waaba eyba waaye. tuugaan la raadinayo maalin walba raashinka cunaba. She is feeding her babies, waxayba markaasi quudinaysaaba ilmaheedii ayay quudinaysaa, eegaa lala jeeda. She said, waxay tiri, that is why, waa sababta, she still markaasi u xada so much food, cunno badan ay u xada. cunno badanaa la xadaa maalin walba marka la leeyahay, markaasi qof intuu cuno in ka badanaa la xadaa maalin walba marka la leeyahay. sababtaani waayo, sababtoo ah ilmaheeda ayay ku quudisaa ayay tiri. Jeannie gabadha la yiraahdo felt waxay dareentay baad inay ka xun tahay. She tried, waxay isku dayday to comfort, inay raaxaystaan the dogs with another plate of food. saxan kaloo cunno ay ku raaxaystaan ay isku daydayba inay u keentaa. intaas kadib she took them back, waxay u celisay eeyihii to the store, maqaaxidii. Everyone, qof walbo there halkaasi joogay, tuug wuxuu qaatay baabi, cunug ayuu qaatay, home gurigiisa ayuu u qaatay. eeyaha yarka ayaa waxaa la yiraahdaa baabi la yiraahdaa. Jeannie gabadha la yiraahdo yaalad waxay ku qaalisay called, waxay wacday andhane the booliskii. She told them, waxay u sheegtay there was no real thief, inuusan jirin markaasi tuug xaqiiq ah. Jeannie gabadha la yiraahdo did not do it to receive, sidaas maysan u sameynin inay hesha the reward, abaalmarinta animal in badan. She said, waxay tiray, it was just a dog, ayuu ahaa, but laakiin there is no charge, ma jira qiimo for catching this thief, tuugan aan soo qabtay malaha hadda qiimo aan idin warsanaa. She said, waxay tiri, my new dog, eegayga cusub, is better, ayaa ka wanaagsan reward, markaasi abaalmarinta ka wanaagsan. waayahay, waan garanay. pageka 139 ayaan u gudbaynaa. su-aalo ayaa noogu qoran. su-aalahaasoo laga keenay sheekadii hadda aan soo baranay, lagu soo dhexlifaaqay 20 erey. su-aalahaas ardayga ayaa la rabaa inuu xaliya. asalaamu calaykum.